الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. aad baan ugu mahadnaqayaa doctor cabdirasaaq jazahu allahu khayran. si aad u qiimo badan oo kooban ayuu inoogu sharaxay dhibaatooyinka uu leeyahay qaadku iyo meelaha qofka bani aadamka ugu halisaysan ee dhibaatada u geysto. aad iyo aad baanay u anfacaysaa dadka culimada ay markay xukunkiisa ka hadlayaan in dhakhaatiirta cilmiyan arrinta noocaasiya u gaadhay ee dhibkiisa u ogaatay hadalkooda ay ogaadaan oo xukunka ay ku dhisan. 3 qodob baan tilmaami doonaa. hadallo badan oo aan doonaya in idhaahdo doctoorka yidhi jazahu allahu khayran. qodobka koowaad wuxuu yahay in badanna waa laga yaabaa in laga hadlay waa arrinta ku saabsan xukunka qaadka. marka la doonayo qaadka in la xukumo ma xalaal baa mise waa xaaraan. ma aha qaadku shay sidiisa nas ama daliil gaari uga hadlay. xukunkiisa waxaa lagu dhisayaa dhib iyo dheef muxuu leeyahy. hadduu noqdo dhibaato bilaa dheefa culamaa ulislaam waxay isku waafaqsan yihiin inuu xaaraan yahi. marka shayga sidaasi magacu doonaya ha lahaado, suurada uu doonayo wakhtigu doonayana ha jiro. waxaa la mid a haddii dhibkiisu uu ka bato dheeftiisa. way soo martay culimada islaamka wakhtiyo xukumkiisa la ysku khilaafsanaa oo culimo aan ujeeddo kala lahayn ama iyaga laftoodu kuwa daroogada isticmaala aan ka mid ahayn in xaaraan lagu yidhaahdo ay diidi jireen. laakiin arrinta noocaasi ahi waxay ku salaysnayd bahalkani dhibaato ma leeyahy diineed ama dhibaato qofka bani aadamka jidhkiisa u leeyahy maskaxda iyo qaybaha kaleba. qolooyinka leh xaaraan ma aha, wakhtigaa qolooyinka laha xaaraan maaha, waxay lahaayeen iyagu dhibaato ma laha bay ku doodayeen. qolooyin kale waa xaaraanna dhibaatuu leeyahay bay ku doodayeen. tusaale way garanayaan dadka cilmiga raacda ibnu xajar ilhaytami waa faqihii shaaficiga ahaa ee minhaajkana sharaxay. 2 kitaabo uu leeyahay buu qaadka kaga hadlay. kitaabkiisa la idhaahdo azawaajir can ikhtilaaf alkabaa'ir iyo kitaab uu si gaara uga qoray oo u bixiyey taxdiiru thiqaat can isticmaali alkaftati walqaat. marka wuxuu leeyahay 2 kitaab, isagu maki buu ahaa, reer maka ayuu ahaa. 2 kitaab baa iiga yimi, 3 kitaab baa iiga yimi yaman. 2 kitaab qaadkay xaaraantimeynayaan, midna uu xalaaleynaya uu doodaya. marka arrin aad iyo aad u qiimo badan oo haddii xataa wadaadada hadda ka hadla ay fahmi lahaayeen wax badan uga tari lahayd garashada xukunka qaadka ayuu sheegay. wuxuu uhi waxay isku waafaqsan yihiin 2 qaybood. qaadku hadduu dhib xagga jidhka ama caqliga uu leeyahay inuu xaaraan yahay bay isku waafaqsan yihiin labadooduba. laakiin dhibkii ma leeyahay mise ma laha bay doodu ka taagantay oo ay ku salaysantay. wakhtigan maanta aynu joogno waxaan filayaa doodda noocaasi inay meesha ka baxday. waayo waxaa la isku waafaqay qaadka haddii la yidhaahdo dheef buu leeyahay ba anuu kolley wax dheef ku sheegaya ma arage inuu dhibkiisu dheeftiisa ka badan yahay. waa maxallu itifaaq. gaal iyo muslimo waa isku waafaqay. shaygana dhibaatadiisa waxaa lagu ogaadaa ama arrimaha lagu ogaado waxaa ka mida 2. arrinta koowaad waxay tahay ceelkaa dadkii guntiisa u dhaadhacay dee inay ka soo warramaan
dadkii isticmaalay ee dhibkiisa taabtay dabku inuu dhib leeyahay maxaa lagu ogaaday waa la taabto waa lagu gubtay intana dhibaato inuu leeyahay baa la ogaaday dadkii qaadka isticmaalay culimo run ka sheegtay iyo in badan oo ka mida dadka aan cilmiga lahayn oo isticmaali jiray oo iska daayey waxay ka markhaati kaceen dhibaato diineed iyo mid jireed baynu leeyihin waxaa jiray sheekh yamaniya oo la odhan jiray abubakar ibnu ibraahim almuqri alxaraazi ashaafici faqiih shaaficiya buu ahaa yamaniya kitaab buu ka qoray qaadka ku xaaraantimaynaya dadkii qaadka cuni jiray buu ka mid ahaa hadal xikmada xukumka uu ku dhisay buu kitaabkaa ku sheegay waxaan ogaaday buuhi oo aan soo taabtay anna lahu dararan fii badanii wa diini inuu dhib u leeyahay jidhkayga iyo diintayda labadaba waa markaasaan naftayda ka jaray buuhi waxaa kaloo isaguna culimada cuni jirtay ee weliba laga yaaba markii hore inay difaaci jireen ee markii dambe dhibkiisa ay taabteen si adag uga hadlay ka mid a sheekhii la odhan jiray albayxaani ee yamaniga ahaa islaaxu lmujtamac kitaab la idhaha buu leeyahy gabayo badanoo xataa dadka uu kaga wacyigelinayo uu markii dambe tiriyey inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi albasharu faida ma akalathu ummatun facduruuhum fainamaa hum baqaru qaadku waa caleen cagaaran buu yihi bani aadamku uma baahna ummad qaad cunaysa haddaad aragtaan isaga cudur daara waa iska lo daaqaysawne macnaa wuxuu sidaa ugu adkaynayaa dadka ayuu u turaya uga naxaya uu doonaya inuu ka didiyo oo uu ka eriyo maqsuudkiisu maaha inuu dad caayo culimadeena laftooda qaar qaadka markii hore yacnaa mowqifka ay ka taageen mowqif adag aanu ahayn oo markii dambe dhibkiisa ay si dhow u taabteen ee u ogaadeen xataa gabaye ka tiriyey baa jira waxaa ka mid a sheekh cabdillahi cali jawhar ceelafoyn markaanu joognay gabay buu noo akhriyey uu qaadka ka tiriyo carabi ah markii hore wuxuu yidhi dhibkiisa sidaa umaan dareensanayn laakiin dhibkiisii markaan dareemay sheekhu naguma odhan waa cuni jiray qaadka laakiin dhibkiisii markaan dareemay buu ihi ayaan gabaygaa ka tiriyey dadkeenna qaadka cuni jiray iska daayeyna kaad waraysataaba dhibaatada diineed iyo adduunyada ku hayay buu kuu sheegaya nin baa wuxuu igu ihi qaadka cuni jiray oo iska daayey anuu maalintan qaadka iska daayey umaan dhashay buu ihi cumrigayga intii hore waxa laale inaan waalaay in miyir qabi kala garan maayo diinteedii iyo adduunyadeedu way dayacnaay buu sidan oo kale aanu habeen qaadka uga hadalay masaajidkaa sayid cali muddo kadib baan masaajidkii salaad maqrib ku tukado laba nin oo dhalinyaraa baa yimi ashee qaadkaan cuni jirno habeenkii dhow halkan aad kaga hadasheen baanu iska dayn ka warrama noloshiini maxaa iska bedelay wax weyn baa iska bedelay bay dhahdeen annagaa salaada jamaacada tukanayna salaad subax masaajidkaanu ku tukanaayo qur-aanna waan dhigana lacagtuna jeebkaiyo kama dhamaatay dhahay carruurtayadii oo markii hore aanaan isaqoonna waanu isbaran taa ayaanan ku dheeraane arrinta kale ee shayga dhibkiisa lagu ogaan karaa waa shayga in laab la geliyo oo la baadho qaadku maanta wax lagu murmi kara maaha dowladaha caalamka xagga qalabka caafimaadka iyo aqoontiisa u horumarsan ayaa laab geliyey dabeetana dhibaatada uu leeyahay bay sheegeen waxaana lagu daray liiska daroogada maanta caalamka muran ka taagay maaha inagu ma murmurana darooga maaha iyo wuu fiican iyo waa quud awliye iyo sheeka baraleyda inagu baa shubnay caalamku 1973 buu ku daray liiska daroogada innagana mashaakilka maanta ina haysta waxaa ka mid a caawa aan uga faa'iidaysanayo fadhigan xataa inteena aan cunin
xataa culimadeenna xataa imadoo dhakhaatiirteenna ka mida ayaan yaqiinsan oon aaminin oo caqiido qalbigooda gashaa ay noqo inuu daroogay. waxyaabaha taa tusinayana waxaa ka mid a qofka qaadka cuna qof darooga isticmaala maanta miyaynu u naqaanaa markaynu runta iyo xaqiiqada sheegayno? waa maya, u qayilaa un baynu dhahnaa iyo qaad ku cunaa. inta aan qaadka cunin ee nacebi dee kolle way karaahiyeysanayaan inuu iska dayn lahaa bay jeclaan lahaayeen, laakiin darooga inuu yahay weli inamay gelin. hadday noqoto dowlad ahaan liiska daroogada laguma darin. wadaadadii markay sheegayaan in badan waxa laga yaabaa inaanay afka ku ballaadhin inuu daroogay iyadoo arrin cilmiyan loo gaadhay wax la taaban karo oo laab la geliyey oo lagu soo saaray kii dhakhtarku idiin sheegay 2 daroogaa ku jira buuri. anuu intaan akhriyey daroogadiisu xashiishada noocyada qaarkood way ka daran. Dictor Sosama maanta xashiishada noocyada iska fudud inaan cabbaa hadduu inay naga soo doono xidhanaa inuu ku ogaano nin xashiishad cabbad siin maayo inantayda, laakiin ninka maalintii 2 kiilo qaada cuna oo daroogaa shay iska caadiya inuu aragna. marka horta bal aynu aamino inuu ictiqaadno waxaan inuu darooga yahay. aaminidda noocaasi ahi waxyaabo fara badan bay sababaysa in lala dagaalamo, in dadka laga wacyigeliyo, in dadkii xataa isticmaalayay laftoodu inay isku khajilaan. marka lagu dhahdo daroogaystaa tahay, marka lagu dhahdo kaagan qaadka cunaya isma ogide waa tan hooyo akhri. laababkii caalamigaha markii la geliyey liiska daroogada meel saru ka galay. shaygana haddii dhibkiisu dheeftiisa ka bato adiladu way ku caddahay. magacu doonaya ha lahaado, muuqu doonayana ha lahaado inuu xaaraan yahay. intaasunbaa la hubinayaa dhibkiisu ma ka badanya dheeftiisa. hadday jawaabtu haa noqoto laguma murmi karaba inuu xaaraan yahay. wuxuu yihi yuusuf ibnu yuusuf almuqri sheekh la odhan jiray ayaa wuxuu yihi qaadku wuxuu ku soo beegmay buu ihi ilaa qarnigii 10aad baa ka hadalkiisa iyo dee soo ifbixiisa iyo faafitaankiisa uu bilaabay. wakti ay joogaan fuqaha aan ku dhiiranahayn in idhaahdaan waxaasi waa xaaraan iyo waxaasi waa xalaal. raggii ragga ah ee fuqahada hore waktigoodii hadduu soo bixi lahaa mar horey si cad u sheegi lahaa inuu xaaraan yahay. ilaahay baa subxaana wa tacala yihi yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ithmun kabiir wamanaaficu linnaas wa ithmuhuma akbaru min nafcihima. maxaa khamriga iyo khabaarka maxaa loo xaaraantay? ilaahay cil uu sheegay. shay kasta oo cilada ama sifada laga hela xukunkoodu qaadanaya. waa dhibkooda ka badan dheeftooda. waxaa kaloo ilaahay u yihi waa kii dictoorku aayadda sheegay yuxilu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhaba'ith. sifada nebi maxamed waxa wanaagsan buu dadka u xalaaleynaya, waxanu ka xaaraantimeynaya. maxaa ayibaada, maxaa khabaa'ith? tafsiirka ugu saxsan aayaddaasi ay leedahay waxa weya in la idhaahdo ayib waxa dheeftiisu waxa dheefun iyo nafcu leh dhib aan lahayn, ama dheeftiisa iyo waxtarkiisu dhibaatadiisa ay ka badantay, kaasaa ayiba. wax kasta oo dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa waa khabiith. nebi maxamedna ilaahay wuxuu soo diray inuu xaaraantimeeyo. waad arkaysaan waxa dhibaato dhakhtarku u sheegay qaadka. qofka bani aadamkaa dee afka laga bilaabo socown, maskaxda, beerka, keliyaha, wadnaha, caloosha, meel walba. nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sida ibnu maaja wariyey laa darara walaa diraar, ay laa darara walaa diraara jaa-izun fi lislaam. wixii qofka bani aadamka dhibaya ama cid kale uu ku dhibaya islaamka dhexdiisa ma banaana. waa qaacido guud. dadka qaarkood oon shareecada aqoon u lahayn ba waxay ku odhanayaan aayad keen le qaadku waa xaaraan ama sigaarku waa xaaraan. dee aayaddu waa tan wa ithmuhuma akbaru min nafcihima yuxilu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhaba'ith.
xadiidku waa kan laa darara walaa diraar magacu muhim maaha shaygu sifa magaca xukum kuma yeeshee sifada ayuu ku xukum qaatay sifada uu leeyahay ayuu ku xukum qaatay Abdullaahi ibnu Mascuud radiyallahu canhu soo muu odhan maxaanan u nacdo lahayn kuwo ilaahay uu kitaabkiisa ku nacdalay yuu ka hadlayay alwaasila walmustawsila gabadha dumarka timahooda timo kale ugu xidhiidhisa artificial iyo taa arrintaa dalbaysa aayad qur'aan oo sheegaysaa ma jirtaa dala soco markii la yidhi halkay kitaaba kaga jirtaana wuxuu yidhi dee ilaahay baa yidhi wamaa ataakum arasuulu fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu diiday mar hadduu rasuulku diiday dee aayaddaas ayay hoos tegaysa marka wax kasta oo dhib leh dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay aayadaha qur-aanka way xaaraantimeynayaan shareecada islaamkuna qaabka wuxuu xukumtaa maaha uun shayga magaciisun in la sheego shayga magaciisa in la sheego waa lagu xukumaa sida khamriga oo kale waxaa kaloo shayga xukumkiisa lagu muujiyaa in la sheego qaaciide guud waana ta muhimka ah oo shaygii sifo uu xaaraan ku noqonayo u sheegaysa si ay u soo hoos galaan ashyaa aan jirinba waktiga aayaddu soo degaysa oo sifadaa iyo tilmaantaa leh wadaadada qaarkood waxaa laga yaabaa inay qadiyadda qaadkee bulshadana dhibaatada ay ku hayso maanta ad aragtaan inay ka dhigaan qadiyad ku saabsan madaahib iyo iskhilaaf culamo iyo waxaas sidaana maaha fi lxaqiiqa wadaadku hadduu isagu dadka lagu ibtileeyey cunista qaadka uu ka mid yahay oo naftiisa uu turi waayey ummaddana inuu lugooyo maaha oo uga dhigo wax ikhtilaaf madhabi oo kale tusaaleaan qaadiriya ay ogoshahay wahaabiyana ay diidantay saana arrintu maaha ibn xajar ilaytami waad garanaysaa dee waa nin suufiya buu ahaa waa ashcariya waxaanu ku soo gebagabayna marka u dambaysa qaadka ila dadkii uga soo warramayey baa sifaadkiisii isku khilaafay soo ma qaarna yidhahdeen dhib buu leeyahy qaarna yidhahdeen dhib ma laha isaguna muu tijaabin wuxuu ku soo gebagabeeyey xataa haddaanan odhan oonan ku dhiiran inuu xaaraan yahay qof leh warac iyo zuhdi iyo dadnimo wuxuu cuno maaha buuri qaadku innaga haddee sheegaynay culimada shaaficiyada wakhtigaa hore jirtay weliba reer yamaneed u badan ee yidhi qaadku waa xaaraan shirkii ka dhacay magaalada madiine jaamica alislaamiya ay soo qabanqaabisay ee culimada islaamka o dhan loogu yeedhay ee lagaga hadlayey muskiraadka waxyaabaa lagu sirqaamiyo mukhadiraadka iyo sigaarka iyo qaadka waxay culimada halkaa isugu timi ay ku xukumeen in mukhadiraadka uu ka mid yahay marka maaha wax ku saabsan madaahibiyo wadaaddo horaa ogolo wadaaddo yarara dambaa diidani waxaa maaha wuxuu waxa dhibkiisa maanta laysku waafaqsan yahay dhibkiisaana xukun buu ku qaadanaya uu ku yeelanaya sala allahu calaa nabiyina maxamed